السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلتي wanaagsan markale asxaabay meel kasto aad naga daawaneysaan ku soo dhawaada mid kale oo kamida qisooyinka cajiibka ah ee aan channelkeena idinkugu soo gudbiyo. Haddaba qisadan waa qiso aad iyo aad xiiso u leh. waxay dhacday sanadkii 1988 waa markii wax yar ay ka dhinnayd in la soo weeraro dalka Kuwait. waxay ka dhacday dalka Kuwait waa sheeko runtii aad cajiib u ah. qiso la yaab la waa ilaa hadda booliiska dalka Kuwait way u kaydsan tahay. waxyaabo badan baa laga bartay. alcumuum qisada waxay ka mid tahay qisooyinka aynu ka soo ururino buugga qisooyinka la yaab kale uu qoray qoraaga la yiraahdo Abu Dalal al-Hamrani. haddaba qisadeena waxay ku bilaabanaysaa meel control ah oo duleedka magaalada Kuwait ah. ayaa habeenkii markii waqti dambe la gaaro ciidanka ammaanku waxay sameeyaan control ay dhigtaan meesha. controlkii waxaa ku yimid gaari Mercedes ah oo aad u qurux badan. waa la joojiyey. laba askari oo mid sarkaal yahay midna ka hooseeyo oo gaari booliis wata ayaa meesha dhigta. macnaha checkpoint markasta meel la dhiga ma booliisku soo socdaan si ammaanka wax looga qabto marmaray meel iska dhigtaan. gaariga booliiska la dhigaa kadibna baaladii caagadaha meesha la dhigaa. gaari kasta marka waa la kontroolaa oo waa la baaraa. gaarigii yaa soo istaagay meesha. askari yaa ku baxay. ninkii darajada sareeye maaha kii ku xigay ayaa aaday. kii darajada sareeyay isaguna gaari kale oo meesha yimid dhanka kale ka yimid ayuu aaday. isaguna kaasuu la hadlayay. askarigii marka gaarigii darishadu garaacay. muraayada deji yiri way dejisay. gabar markaa qurux badan ayaa gaariga wadata. ahlan wa sahlan hay nasiyo dhahay laysanka gaariga ku wadato itus. buugga gaariga itus. adiga su'aalo caadi ah oo booliisku baabuurta markay joojiyaan dadka ay weydiiyaan la weydiiyay. markaasay aamuste. markaasuu yiri maxaa u aamusan tahay? fadlan shaqaa ii taala gawaari kale ayaan rabaa inaan baaro. marka waxa aan ku weydiiyay keen haddii aadan hayna ii sheeg dee sharcigaa lagu marsiinayaa. aniga maa sharci imarsiinaysaa? aniga ima taqaanid miyaa? aniga digtooro waxaan ahay dhakhtarad heblaayo. askari waa aamus waa dhegaysanaa waa qaylinaysaa keligeed. war aniga wuxuu ku dhahay dhakhtarnimadaada maa kugu haystaa? waxa aniga shaqadayda aan ku weydiiyey keen haddaadan hayna ma haya dheh. sharci iyo nidaamaa ka yaala eewu hana daahinin ee dhakhtarnimo kuguma haysto. waa qaylinaysaa hayayayayayay. markii dambe maxay bilowday? aniga maa afka ila soo galaysaa? aniga maa gacmaha ila soo aadaysaa? ninkaamaba taaban mog. fartiisa ma saarin. muraayada deji alaabtaas lagaa raba keen basuu yiri. markaasay ninkii waxay ku furtay buug. askarigii kale ayaa gaarigii kale soo dhamaystay hawshiisiiyaa kusoo leexay. maxaa dhacay yiri. marka ninka sarreeya waa ninkan gadaal ka yimid. markaasuu wuxuu yiri waa yaabanahay aniga. gabadhan gaariga muraayada deji laysankaaga keen iyo buugga gaariga iyo huwiyatu shakhsigaaga iyo waxa adiga wixii caadi laga rabay qofka keen. buuqaanay bay u furtay. sheekadaanay bilowday. gacmuhu soo aadaya maxay wax yar gadaal u baxo yiri. ninkii sargaalka u yimid kasoo yiri muraayada ayuu sidaan gacmaha u saartay. neefteeda soo gaartay. marka wuxuu ka dareemay inay cabsan tahay. ahlan wa sahlan
qamriye ma ka dharagtay dhaagta waan ku gartuu dhahay anti sakrana waa cabsantu yiraahday laakiin cabsanaan gaari laguma wado meeshaan waa dambi weyn qof cabsan gaari ma wadi karo shuruuca ka taala marka gaariga furihiisa keen soo deg waxa lagu geynayaa saldhigga booliiska anima saldhigga booliis la geynayaa aniga ma taqaaniin miya aniga waraa dhegeyso dhahay aniga wax la yiraahdo meesha jiraan sargaalkii wuxuu dhahay katiinaday soo deji gaariga furahana ka qaad ayadoo dheesa inta la soo dejiyaa la katiinadeeyay gaariga furihiisana waa laga qaaday gaari kale la hadleen booliis ay mid waa la qaaday baabuurta oo qaada baabuurta inta loo keensaday booliisku leeyihiin la qaatay gaariga waa la qaatay fiisha traafika la geystay meeshii traafikada oo xarunta u eedaa la geystay ayadiina waa la soo kaxeeyay gaarigii booliiska soo saarteen waxay u soo kaxaysteen saldhigyaa la keenay way qaylinaysaa marka weli aniga see afka ila soo galaysaan aniga ma taqaaniin horta aniga ya waa waqti dambe saldhigga dad badan oo jooga meesha male telefonkeeda inta qabsatay nin wacaysaa sheekh sida la ii galay caawa sheekhow sheekha waxaa la yidhahdaa dadka shuyuukha la yidhahdaa moogtahay dhinaca boqortooyada dadka macnaha ehelka la shuyuukh sheekhiya la hadlaysaa saasaa leeyaale saldhig hebelaan joogaa ii soo carar ii imaw sheekhiyo gaari wataa aa yimid gaari kaleoo marshiyadiisoo qurux badan wataa wuu soo degay ahlan wasahlan ahlan iyada meesha fadhisaa markuu sheekha soo galay istaagaysaa kuwaan booliis maaha booliis fiican maaha waddaday igu joojiyeen way taataabteen booliisku way yaabayn indhaa ka soo haray sheekhii marka wuxuu yidhi gabadha hala daayo lama deenayalla iyo sakraan waa cabsan tahay gaarina looma dhiibi karo waa in wixii loogu talagalay ay martaa aniga may taqaaniin kuma naqaanay dheh aniga sheekh fulani chachi akachi ahay haye hawiyadaada keenay hawiya waxaa la yidhahdaa aqoonsigaaga wuxuu la soo baxay aqoonsi shaqo macnaha teestaraha shaqada meesha uu ka shaqeeyo shaqadeedu la soo baxay waa mid ka mid a agaasimayaasha wasaaradda warfaafinta Kuwait ugu qoran meesha waxay dheen annaga tii shaqada kuma weydiinin yaa sheekh waxaan ku weydiinay huwiyatu shakhsiya aqoonsigaaga gaarka adiga aan leedahay ku weydiinay annaga ee meela ka shaqaysay waxaas kuma weydiinin aniga see ila hadlaysaan gabadhan soo daaya waxay idin dhex maray waa la dhammaynayaa gabadha anaa wakiilka gaariga haddaysan iyadu wadin xataa dad kalaa wadi doona ayada hala soo daaya ninkii sargaalka meesha joogay wuxuu yidhi ma la sii deenaayo adigana hooyadaada soo xaqiiji wuu qayliyey marka isagana wuxuu bilaabay qaylo haye war annaga oo shuyuukhdii waddanka haye oo saan oo kan miyaa annaga saldhiggan booliiska kulligiina shaqada in laydinka ceeriyo away ninkii ugu sarreeyay meesha baaxidka ninkii baaraha ahaa ee saldhigga jooga sargaalkii habeenkaas joogay shaqada ugu sarreeyaa yimid wuu soo degay meel korow ka soo degay hay sidee wuxuu jiraan waay wuxuu jiraan wax yar isugu dhahay marka waa qaylinaya labadoodiiba say noo galeen aniga sheekhaana huwiye i weydiinayaan aniga maa huwiye la i weydiiyaa kaarkayga shaqadaan tusay waxaa isugu dhahay koruu ku laabtay askarigii gaariga soo qabta u yeeray
حكويري قاريقة تارك دي سكان والله كان لق ماشي القلي نين عن شيخ هاي أو شيوخ الشقة كل هاي أو نين إسكا عادي يكرر كويدة أو جناح صداح أو اللي يقانو أقاريه قران وبليس ويقرتين markii hoos lagu booqayaa ninkii ugu sareeyay wuxuu sheekada hal xalliyo ana soo noqonay korow marka ku baaraya hawshan iyagu ma oga kuwa hoos jooga telefonkii oo qabtay waqti dambe waaye ninkii oo garaac uu dhacay telefonka guriga waaye lama qaban marka loo ku celiyo mar saddexaad uu ku celiyo ninkii oo hurdaysana soo kacay wuxuu yiri sidee wax u jiraan maxaa dhacay caaw أهلا وسهلا أذيك هبل مطعي ها كاري مرسيدس أو نوعاس أو تاري كديسو نوعاس تهي مالله تهي ها كاريغا يا حقيقو دنبي ترول كاريغا إيوذي ساقا ماتا ميلان كو آذا يري سكا آذا يري ترول كاريغا قاتي gaarigaaga meesha booliisku yaala ee saldhigga booliiska ma noogu iman kartaa oo magaciisu saas yahay haa hadda soo dhaqaaqa leeyahay booliiska ku baaha ninka waqti dambe waa soo labistay gaari kale oo guriga u yaalo soo qaatay meeshii booliisku yimid kuwan ninkii iyo naagtii meel gooniya marka la geeyay albaabka laga soo galay ka leexda leeyahay meel kale la geeyo la fariisiyay ninkii markuu soo galay كورا لو قبي نكي وسري صلدقة ما شوف الديا لقي كاريجا نكي كودي ننو عواي والله نكينا اللي روتا كاريجا قبرها كو قبرني قبر ها كاريجا قبر عبسل وليبا نكانوا نين اسكش وذهب عملوا قناع صدواي واحدين اسكا مسكين واهل الدين اسكا لا حول ولا قوة إلا بالله قبر قمر عبسان كاريجا ها صبح اللي رد أنا تقانا قنصتار الغيابة بسم الله الرحمن الرحيم عقالكي ما بدي أكرر عيوة صار وانا حب هردنا وكسوك عبوت هذا لو حوصل فيلي إنه والله شيء ماشي وصوق علي ماشي بركو صوق علي شاكر وماشي وحياب لا نعي ninkii uu fiiriyey waryaa maxaa beeshaa ku keenay gaariga gabadha sarqaansan loo dhiibay maxay tahay wuxuu indhaha ka galay ninkii sheekhaan ahaa lahaa oo warqadda hooyada wasaaraddan agaasimo ka ay dhahay markaas booliisku waxay yidhahdeen joog maxaa dhacay war waa kanaa u dhahay darawalkii gaariga qashinkiisa waana bakistaani u dhahay isagaa gaari bakistaani haa بوليسكي وعيابين شيخان عيوني شيخ بلايا كوكونا عضي وريا قاريقا قبني ايضا وابودا انتتري كبتا اي هيستي وحيكو قراعي كي شيخان احيلها وقراعي سوى قيليني سوى عبستها وروا توق دالي مقع الشيخ نمو يقول بابي وإسكا كي هيستي نور بلود هدان كوكور سنة ويلها شيخان وآمي السنة بابا بوليس كي قعميس سارتين فيلين كماشا كدار بي فيلين عادي يبابا نكي جوق ده حينا وريا عديقا محاتاي وأمس إلين وانين يرانتيس لكاني كويت لهجدة كويت ووحو وقحط لا سيدة كويتين توقلي هديو قجع هالا ويكشكين لهايين بوليس لكن نكال لغا ما شكين كرو سيدة ديو كرانو ولبستي لا حول ولا قوة تلي بوليس كو يابا لكن نكي مركا والله كحي قولها لغو حري ورت كي باكستاني قبل مركا روكا اسكو قراوي عبسنتها روكا اسكو قراعيسا ازدجيا محال عينه ورنك واي خيامي مقع الشيخ ويقول بابي هاي وحو يريبت اللباركو هاي نكي نكتاسو يقساني ناد وكو قرسنا سو إلا وكو قرسنا
adiga hooyadaada keenaalin sheekada dhan ninkii baaxidka ahaa beesha wax kalaaba uga soo baxay ninkii booliiska ahaa filimkii markii hore la fiirsanayay mid kaloo ka duwanaaba yimid ayadiiyaa hadda baaritaan lagu bilaabay kaas waa la xaqiijiyey moogta ayadu marka ma kuweytiyada mise wax kale marka lahjada iyo hadalka iyo waxba macno ma ku fadhiyo nin kasta wuu bara karaa ayada laftirkeediyaa baaritaan ugu sameeyay aniga hooyadeeda anigana ma haysto waay gurigaan ugu soo tegay meelay iga dhacday ma aqaan maalmaha dhan ma arkin laakiin tii shaqadaan wataa keenaa layidhi doctoresa hebel oo cisbitaal hebel ka shaqaysa meelaa lagu xiray iyadana hadda waa waqti dambe subaxii markii la gaaro cisbitaalka boliis loo diray cisbitaalkii ay sheegatay dhakhtaradda waxa dhan cisbitaalkiyaa la tegay ahlan wasahlan boliiskii doctoresa heblaay ma garanaysaan haa waa joogtaa layidhi hadda tabiib oo waxa waaye amraad nafsiya macnaha cudurrada nafsiga ah dadka oo isku buuqa iyo waxaasay dawaysaa ma joogtaa haa labadii boliiska waa isfiiriyeen war waxa karmacay ahayn ayaduna ma feegay wadataa haa asaguna wax feega ma wata war waxaanu maxay ahayn dhakhtaradii u tageen doctoresa magacaaga heblaay ma layidhaha haa bidaaqadan macdaa iska leh haa waa iga dhuntay tiri bidaaqadan mar hore mid kalaa laakiin samaystay meelay iga dhacday aqo waayey mana tusi kartaa dheen hooyadaada dhalashadeedii waxeedii oo dhan iyo waxay dhan ay tustay inay iyada tahay way xaqiijsadeen marka tii marka meesha saldhigga booliiska ku xiran tahay iyadoo sakraasan boliiskii oo yaaban waxay kusoo laabtay saldhigii saraakiisha waxaan soo aragnay wax caadiya ba war waxaan maxay ahaayeen gabadhiyaa lasoo qabtay waa la keenay weli marka way sarqaansan tahay sakradiyaa ku jirta sargaalkii marka ugu sarreeyay wuxuu dhacay sakradda horta hal in laga jibiyo waayo dhakhtaray waceen marka waxaa la yidhi kafee iyo wax un isusiiyo isku dardara ee siiya wixiyay siiyeen xoogaa way roonaatay indhahay soo kala qaaday marka way roonta waxaa la yidhi waryaa dhegayso maxaa beenta noogu sheegtay waxaa beentaan sheegay waryaa adiga ma qofkaan dhakhtaraddan aan noo sheegatay haddaa ka dhibide maadaa bidaaqa dhuntay inta qaadatay sawiratay way naxday indhaa ka soo araydana merig maxaa kugu qasbaa layidhi labadoodii waa la qabtay maxkamadiyaa la geeyey waaba laba tuugaa oo qatara waayo markii maxkamadda la geeyey ayadana way caddaatay ogow inay noqotay hindiyad ku dhalatay kuwait wallaahi war meeshaan waxaa ka dhacay sheeko aan caadi ee boliiska ilaa hadda arkiifyadooda ku jirtaa way u kaydsan tahay maxkamadiyaa la keenay qaadigii sheekadii wixii dhana loo sheegay way qirteen inay waxaa sameeyeen qaadigii wuu yaabay war waxaanu maxay ahaayeen ninkii waxaa lagu xukumay 4 sano oo xabsi ah kadibna in loo masaafurinayo dalkii uu ka yimid dib dambana uusan cag usoo dhigi karin kuwait iyadana 3 sano inta afka loo geliyay ayaa iyadana masaafuris dib dambe aysan ugu soo noqon karin kuwait lagu sameeyey sheekadii marka sidaasay noqotay boliiskii marka waxaasu marka wax weyne ka barteen qofka bidaaqa wuu samaysan karaa aqoonsi uusan lahayn haddana waagaas moogtahay waxaa jiray waxaan electroniga ah ma jirin bidaaqada sawira lagu dhejin jiray baasaboorka sawirka kor loogu dhigi jiray marka sawirkii qofka inta fag la siiyo baa sawir dhag ku siisanaysa adigaa lagu malayaaba qofkii waxa meesha ku qoran iyo sawirkaagaa ku dhegan alaabtan hadda electroniga oo blastiga laga sameeyo waxaas iyo ma jirin waagaas markaasaa boliiskii yab ka soo haray
marka sheekada warka halkaasay markay ku dhammaatay ilaa hadda marka boliiskii arkiifyadoodii waxay ka mid tahay waxyaabihii soo maray ee la yaabka lahaa booliiska dalka Kuwait. marka qoraaga marka wuxuu leeyahay booliiska ayaa ka helay arkiifyadooda sheekada aadka u xiisaha badnayd. haddaba toddobaadkan asxaabay qisadaas cajiibka ahayd ayaynu barnaamijkeena qisooyinka kusoo qaadanay. intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa. ha iloominina inaad fakarkiina iyo aragtidiinu adinkuna ka dhiibataan wixii laga baran karo qisadaas iyo waxay idinla tahay. midda kale like gareeya oo share gareeya qisada. sidoo kale haddaad nagu cusub tahayna subscribe ha ka iloobin channelkeena youtube-ka facebookana follow garey. asxaabay meel kastoo aad joogtaan iyo qiso kale oo xiise leh oo aan mar kale idiin soo gudbin doono haddii alla idmo. nabadgelyo.